بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waa run ahaantii maanta waxaan ugu talagalay xafiiskan ururka Somali Minority Women's and Children Organization ee ku yaala wadanka Sweden, especially in magaalada Stockholm. Run ahaantii aan fadhiyo xafiiskii ururka waxa aan muddaba runtii ka shaqaynaynay qadiyadda arrimaha dadka laga tirada badan yahay. haddii ay tahay runtii xagga arrimaha siyaasadda, iyo hadday tahay arrimaha bulshada, iyo hadday tahay run ahaantii sidii dadka laga tirada badan yahay runtii aafooyinka iyo dhibaatooyinka cunsuriyadeed ee haysta aan u gaarsiin lahayn bulshada caalamka, iyo sidii ay uga qatan yihiin ee aan loo xasuusan sanduuqa dhaqaalaha ee dowladaha horumaray ay siiyaan dowladda Soomaaliya. si gaara waxa aan u bartilmaameedsanay ama aanu area target noo ahaa run ahaantii eriyada ay dadka laga tirada badan yahay ama beelaha gabooye ay sida baas ugu dulman yihiin, xag dhaqaale iyo xag waxbarasho, xag siyaasadeed iyo xag bulshaba. runtii arrintaasi waxa ay nagu qaadatay muddo dheer sidii aan bulshada caalamka ugu bandhigi lahayn run ahaantii qadiyadaasi, ama aan u tusi lahayn eriyooyinkaas dhibaatadu naga haysato. runtiina waxa aanu in badan aan suuro gelinay ama noo suuro gashay in aanu saaxiibo u samayno nala daadihiya, nagala shaqeeya qadiyadaasi, oo run ahaantii siyaasiyiin bulshada caalamka ka mid ah, oo runtii qadiyadeedu ay aada u soo jiidatay, dhawaaqa iyaguna uu aada u gaadhay. aad baan ugu faraxsanahay siyaasiyiin fara badan oo wasiiro iyo xildhibaano isugu jira oo runtii qadiyadan nagala shaqeeya iyo looyaraba. waxa aan aada ugu mahad celinayaa sida bili-aadinimada leh ee arrintayadaasi ay uga shaqeeyaan ama ay ugu talagaleen inay nagala shaqeeyaan, iyo sida ay waqtigooda noogu huraan. waxaan doonayaa inaan u kala qaado runtii intaas wixii ka dambeeya hordhacaas barnaamijka. waxa aan doonayaa inaan u kala qaado 4 qodob. runtii qodob waxa weeyaan waa qodobka sidii ay bulshadan beelaha gabooye u heli lahaayeen mashaariic horumarineed oo runtii kor u soo qaada dhinacyada waxbarashada, caafimaadka, iyo arrimaha kale ee aasaasiga ah sida biyo, iskuulooyin. runtii waxaanu in badan saarfeen ku sameynay ama aanu sahamin ku sameynay eriyooyinka baahiyahaasi ay ka jiraan, iyo qaabkii wax loogu filin lahaa, iyo meeshii aanu ugu sahan tegi lahayn sidii aanu barnaamijyadaasi ugu dhaqan gelin lahayn. waa iga intaas barnaamijku, waana iga talo iyo tusaale. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنيقو دكتور كمال داهر عاشور run ahaantiina ka mid ah aqoon-yahanka bulshooyinka Soomaaliyeed. gaar ahaan waxaan ka mid ahay aqoon-yahanka bulshada beelaha laga tirada badan yahay, especially beelaha gabooye. waxaan runtii xubin ama forumka guddida ka mid ahay ugu sarreysa urur ka dhisan wadankan Sweden, run ahaantiina ah urur u ololeeya xuquuqda dadka laga tirada badan yahay. ururkaasi muddo wuxuu noo aasaasan yahay 2 sano. 2daas sano iyo barhkaas waxyaabo badan baa noo qabsoomay, hadday tahay arrimo mashaariiceed iyo haddii ay tahay xidhiidhinta ama xidhiidhka bulshada caalamka. waana wax lagu farxo oo run ahaantii usoo kordhay ummadaas Soomaaliyeed. waxaan u mahad celinayaa dhammaan bulshooyinka Soomaaliyeed ee garab istaagta mar walba xuquuqda dadka laga tirada badan yahay, runtiina si gaara
noo siisa gacan iyo garab istaag iyo hiil iyo hooba aad baan ugu mahad celinayaa. In allaaliya inta nagala shaqeysa qadiyadda ururkaasna waan aad baan uga mahad celinayaa, haddii ay tahay dad ajaaniib ah iyo haddii ay tahay oo isugu jira siyaasiyiin iyo xildhibaano, wasiiro midowda Yurub ka tirsan iyo wasiiro waddankan Sweden ka tirsanba aad baan ugu mahad celinayaa, iyo xildhibaano baarlamaanka ku jiraba oo qadiyadaasi aad noogala shaqeeya, ballanna qaaday ilaa inta ay qadiyadaasi ka midho dhalaysa inayna garab istaagaan oo ay meel sare gaarsiiyaan qadiyadaasi. aad baan ugu mahad celinayaa run ahaantii. waxaan usoo fadhiistay barnaamijkaygan mahad celinta ka bacdi inaan 4 qodob aan kaga hadlo qadiyadaasi. urur ahaan runtii waxaan muddo dheer ka shaqaynaynay sidii aan bulshada caalamka iyo qadiyadda beelaha gabooye aan ugu gaarsiin lahayn dhibaatooyinka ka jira wadankii, hadday tahay mid dhaqaale xumo, hadday tahay iyo mid waxbarasho la-aaneed, iyo hadday tahay mid caafimaad oo aada loogu caafimaad darro, iyo biyo la-aanta ka jirta ereyadaasi, iyo inaanay dowladda Soomaaliya aanay sanduuqii dhaqaalaha midowda Yurub ama bulshada caalamka ay siinaysay inaanay ereyadaasi ama district area minority area aanay waxbaba ka gaarsiinin. specifically waxa aanu si gaara usii target garaysanay ereyooyinka ay bulshadaasi aada ugu liidato, run ahaantiina maamulada ka jiraana ay ku hayaan caburin iyo cunsuriyad, iyadoo aanu runtii u kala qaadi doono qodobadaasi, qodobo runtii xasaasiya. waa kow, waxa aan horta aada iyo aada ugu baaqayaa ururada ka jira wadankan Yurub ama qaaradda Yurub ee bulshooyinka beelaha gabooye ama minority organizationska ku shaqeeya kana jira wadanka qaaradda Yurub. waxaan baaq u dirayaa horta waa kow in ay qadiyadda beelaha gabooye ay ka yeeshaan, aanu ka yeelano networking oo aanu run ahaantii xidhiidh weyn aanu sameyno, oo aanu arrintaas baaq baan u dirayaa cid kasta oo urur ka mid ah ururada beelaha gabooye ama bulshooyinka Somali minority community ka mid ah ama Somali minority organizationska ah. waxaan baaq ugu dirayaa in aynu dallad qaaradda Yurub ka howlgasho aynu yeelano, si degdegana aynu isugu imano, xidhiidhna aynu ka yeelano. waa baaq iga baaq iga weyn oo iga socda, oo run ahaantii baaqa igu weyn. taas waa iga taas. aan usoo daadaco duluucda qodobadayda. urur ahaan waxaa noo suuro gashay run ahaantii 4 qodob. waa kow, qodobka koowaad waxa weeyaan inaanu bulshada caalamka xidhiidh iyo saaxiibo uga sameyno sidii qadiyadan naloola meel marin lahaa bulshadaan nahay bulshada beelaha gabooye. urur ahaantaa waanu ku guuleysanay, runtiina xidhiidh wanaagsanna waanu yeelanay, hadday midowda Yurub tahay iyo hadday dowladaha kale ee Scandinavianka qaarkood ay tahayba. runtii qadiyadaasi waana naloo ballan qaaday, waana naloo heelan yahay. alxamdulilaahi rabbilcaalamiin. taas waa naga taas.